بسم الله الرحمن الرحيم كلا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كان maanta gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa diyaaradda MQ-9 Reaper oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Mareykanku ay adeegsadaan waxay ka mid ahayd qalabkii ugu casrisanaa ee militariga Mareykanku ay isticmaaleen isla markaasna sanadkii la soo dhaafay ay aad ugu adeegsadeen dagaalka waxa loogu yeero argagixisada waxaana lagu isticmaalay wadamo kala duwan waxaa ka mid ah Ciraaq, Suuriya, Soomaaliya, Yemen, Liibiya laakiin diyaaraddaasi hadda waxay u muuqataa suuqa inay ka baxayso maxaa ugu wacan xogaga xuutiyiinta ee waddanka Yemen tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada ka dhanka ah ee Israa'iil ee Mareykanku gurmadka u sameeyey waxay soo rideen in ka badan 20 diyaaradahaasi hadda calama su'aal ayaa dul saaran waxtarka iyo jiritaanka iyo sii shaqaynta diyaaraddaasi oo ka mid ahayd mid ka mid ah waxyaabihii Mareykanku uu ku faani jiray xagga ciidamada haddaba diyaaraddan imika masuuqay ka baxday miyay u dhamaatay kadib markii sida shimbirihi ay u soo daadiyeen xogaga xuutiyiinta ee waddanka Yemen warbixin xasaasi ah oo arrintan khubaro ay ka hadlayso maxamed maxmud cadde ayaa soo akhriyay macluumaad amuurahan laga qoray maxamed bal hadda xogtan inoo bilow bartamihii bishii May ayaa diyaarad nooca ugu awoodda badan ee nooca aan duuliyaha lahayn drone-ka oo loo yaqaan MQ-9 Reaper ayaa si degan waxa ay ugu duuleysay hawada sare ee waddanka Yemen waxaana muuqatay in ay howlaheeda si caadi u wadatay isla markiiba qolkii laga hagayay ayaa waxaa ka yeeray wiishash ciidamadii Mareykanka ah ee ka shaqaynayay diyaaraddaasi iyo diyaaradaha la midka ah ayaa waxay ku baraarugeen gantaal inuu diyaaradda ku soo wajahan yahay ee xuutiyiinta soo rideen oo lala beegsaday xogaa yar ka bacdina intii aynan far qaadinba gantaalkii waxa uu haleelay diyaaraddiina waxa ay ku burburtay gudaha waddanka Yemen ayaa mar dambe soo saartay filim muujinaya diyaaradda oo gantaal lala eeganayo qaybo ka midna ay gubanayaan qiiqii iyo burburkeedina soo sawirtay diyaaraddaasi waxay ka mid ahayd 7 diyaaradood oo saasoo kale ay xuutiyiinta ugu soo rideen Yemen bartamihii bisha March taasoo u taagnayd sas ka dhex jira waddanka Mareykanka in diyaaradihii ugu awoodda badnaa ee droneska ahaa in sidii shimbirihi loo soo daadinayo waxaana laga baarandegay in diyaaraddaasi la xoojiyo si aan loo beegsan waa gartay marka maxmed ma la oran karaa qasaaraha Mareykanka soo gaaray diyaaradahan la soo riday ayaa qayb ka ahaa waxyaabihii Trump uu go'aansaday inuu u joojiyo dagaalkii iyo duqeyntii uu ku hayay xuutiyiinta xabajoojin ay dhex marta labada dhinac diyaaradahan inay soo dhacdhacaan ayaa soo noqotay waxayna dardargelisay in dadka lafugurayaasha ah ay dood furaan oo ay yiraahdaan waa in isbeddel lagu sameeyaa aragtidii aan ka qabnay awoodda hawada sare doodaasi ayaa waxa ay dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo in la sii wadi karo diyaaraddan droonka ah oo qaaliga ka badatay in tiro saas u fara badan la daadiyo mid walbana uu qiimaheeda lagu qiyaasayo $30 milyan dadka ku howlan ama ciidanka cirka u qaabilsan arrimaha diyaaraddan MQ-9 ayaa waxa ay ku sheegeen gantaalka haleelay inuu ahaa gantaal caadi ah waxayna maraysay hawada dhexe caqabado fara badan oo jawiga ka jira ma jirin marka laga gudbo nidaamka difaaca cirka ee xuutiyiinta waxaa laga hadlayaa xuutiyiinta ma aha urur haysta nidaam difaaca oo aad u weyn oo u dhigma sida Ruushka iyo Shiinaha kale haddii ay maareeyeen inay soo rideen diyaaraddii maxaa dhici kara su'aalaha ayaa la isweydiiyey waa gartay waayahay
marka bal waxaad dib noogu celisaa maxamed isticmaalka diyaaradan iyo maraykanka xilliga ay u ahayd xilli dahabiya. sheekada la xiriirta diyaaradan la yiraahdo MQ-9 waxa ay bilaabatay markii Mareykanka uu u baahday in uu sameeyo diyaarado waxtar leh oo lagu bedelayo diyaarad ka horeysay oo la oran jiray MQ-1 waxaana bilaabatay in la isticmaalo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in ay weeraro nishaabkooda sugan yihiin meelo fogfog ka qaadaan markii dowladda Mareykanka ay xoog ku qabsatay wadamada Ciraaq iyo Afghanistan. ugu dambeyntii dabayaaqadii 10kii sano ugu horeysay qarnigan 21aad MQ-9 ayaa la daahfuray oo ah tiknoolajiyad casri ah marka ay timaado la socoshada dabagalka iyo howlgalada. waxaa sidoo kale ay qayb ka ahayd haddii ay wax dhacaan inay baaritaanka iyo badbaadinta ka qayb qaadato. waxay awood u lahayd in ay weeraro nishaabkooda sugan yahay qaado. waxay ahayd diyaarad ay ku hubeysan yihiin gantaalo burburkoodu aad u ballaaran yahay. waa gartay maxay diyaaradan markii hore Maraykanku u lahaayeen waa diyaarad bala ka dhacday qaabka ay ku shaqeyn karto sida ay u hawl gasho inta kilomitir ee ay ku socon karto iyo hawlaha ay qaban karto inoo faahfaahay maxamed. diyaaradan MQ-9 la yiraahdo waxaa lagu tilmaamay inay tahay diyaarad casri ah awood ballaaran leh kana mid ah diyaaradaha dagaalka lagu galo ee droniska kuwa ugu casrisan marka ay timaado goobaha ay ka dagaalantay. waxay awood u leedahay in ay qaado 8 gantaal oo lagu hagi karo laser. waxaa intaa u dheer inay qaado 16 kale oo gantaal oo lagu yiraahdo gantaalada cadaabka ah AGM 114 lagu rido diyaaradaha. waxay sidoo kale diyaaradani hawada ku jiri kartay ama gaari kartay ilaa iyo 2000 oo kilomitir iyadoo aan shidaal lagu shubin. waxay ku shaqeyn kartaa jawiye kala duwan ama qabow ha noqoto ama kuleyl ha noqoto. waxay hawada ku jiri kartaa 24 saacadood oo isdaba jooga. MQ-9 ayaa waxa ay hawada sare kor ugu kici kartaa ilaa iyo 50,000 oo feet. waxaana la sheegaa in xawaaraheedu uu yahay 300 oo kilomitir saacadiiba. MQ-9 ayaa lagu qiimeeyey qaabkay u dhisan tahay iyo qaabka loo naqshadeeyey in ay ka muuqato inay tahay diyaarad waxtarkeeda aad u weyn yahay leh qaabab badan oo ay ka duwan tahay diyaaradaha kale. dhererkeeda waa ilaa iyo 11 mitir. baalasheeda waxay isu jiraan ilaa 20 mitir. joogeeda markay dhulka taagan tahay 3 mitir iyo waxa weeye 80 sentimitir. waxaana la sheegaa in culeyskeeda uu yahay 2 tan iyo 2 kiilo. waxaana la sheegaa in ay qaadi karayso gantaalo ay ku dagaal tagto fogaan gaaraysa ilaa iyo 1700 oo kilomitir. waxayna ogolaanaysaa in la saaro rasaas noocyo kala duwan ah. waa gartay xilli waxaa jiri marka ay aad Maraykanku u isticmaali jireen diyaaradan gaar ahaan dagaalka Afghanistan oo kale. marka ma la oran karaa waanu imaan doonaa in diyaaradahan hadda ay hawada ka baxeen laakiin xilliyada ugu badnaa ee aad loo isticmaali jiray inoo faahfaahay maxamed. xilliyadii diyaaradan aadka loo isticmaali jiray waxaa loo kala qaybiyaa in ay diyaaradani la timid wax aanan goobaha dagaalka hore lagu arki jirin ayadoo nishaabkeeda uu sugnaa iyadoo suuragelisay in duqeyn wax ku oola ay geysato. tusaale ahaan boggii waxay bedeshay dagaalkii Maraykanku uu Afghanistan kula jiray. diyaaradan waxa ay duulimaad samaysay 480 goor oo u dhiganta 3800 oo saacadood ayay duulimaad ku jirtay. waxa ay 10 bilood gudihiis intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2008
ayay fogaantaas jartay 3,800 oo saacadood oo saacadaha duulimaadka weeye 2017 wargeyska Guardian ayaa ku tilmaamay diyaaradan inay calaamad u tahay dagaal raqiis ah oo goobta dagaalka ay wacdaro kaga dhigto hase ahaatee sida ay wax walba isu bedelaan awoodeedii xagga farsamada waktigii ayaa ka daba yimid waxaad moodaa hadda farsamadeedii markaas casriga ahayd in hadda uu dagaalka casriga ka daba yimid isbedel tartiib u sameynayay hadda waxaad moodaa in wadamada cadowga ah ay samaysteen nidaam difaac iyo isbedel ay ku sameeyeen qaabkii ay difaacooda ugu dagaalami jireen tanna waxa ay abuurtay xaqiiqo cusub MQ-9 diyaaradda la yiraahdo ma ka caagana in la soo rigo bad shimbir camal ama shimbir camal baab loo soo daadiyey ciidamada caadiga ah iyo ciidamada hubeysan waxa ay isticmaali karaan raadaaro ay ku ogaadaan diyaaradan kadibna gantaal dhulka laga soo riday ayaa awood u leh in lagu soo rido waa gartay haddii maxamed sidaas diyaaradan Mareykanku ugu faani jiray kalsooni badan uu ku qabayay maxaa ka dhigay baylah iyo inay u nugushahay sidaas in loo beegsaday oo xuutiga sida shimbirihi u soo daadiyeen waxaa la sheegayaa marka la fiiriyo diyaaradan xajmigeeda iyo culayskeeda ayaa loo tixgelinayaa in uu mar awood ballaaran u ahaa haddase waxa ay noqotay nugeyl inay ku keento culayska iyo gaabiska iyo iyadoo diyaarad aad u ballaaran ah si dhaqsaana lagu dabageli karo loona bartilmaameedsan karo sanadkii 2024 isku day fara badan ayaa la isku dayay meelaha ay ka nugushahay diyaaradan in laga dhuudhuujiyo ciidamada badda ee Mareykanka ayaa waxa ay ku xireen sanduuqyo electronic ah oo tashwiish ku furaya raadarada cadowga hase ahaatee isku daygaasi waa shaqayn waaye waxaa loogu talagalay in diyaaradda laga dhigo midaan la arki karaynin laakiin taas suuragal ma noqon yamaniyiinta ayaa markay hawadooda soo gasho beegsaday oo xal u helay sheegayna ama kashifay inay diyaaradani tahay mid aad u nugul awoodna loo leeyahay in la ogaado lana soo rido waa gartay waxaad xustay yamaniinta in ay soo daadiyeen diyaaradda marka qasaaraha Mareykanka ka soo gaaray diyaaraddan oo kaliya maxaa lagu sheegay xogtu maxay sheegaysaa diyaaradaha dagaalka loo isticmaalo ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa qiimahoodu aad u jaban yahay ama kuwa ka raqiisan inay jiraan in diyaaradan MQ-9 sheekadeeda ay noqoto in halkii mid lagu qiyaaso $30 milyan ayaa hoosta waxaa laga xariiqay in ay jiraan diyaarado kale oo dharbaaxyooyin culus geysan kara oo lagu bedeli karo si sahla khabiirada ayaa waxay ku qiyaasayaan tirada diyaaradaha hawada ay ka soo riday Yaman ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii 2023 ayaa labaatameeye kor u dhaafay taasoo u dhiganta in lacag ka badan $500 milyan inay Mareykanka qasaartay marka la barbar dhigo diyaaradda F-35 la yiraahdo midkii ayaa waxa uu joogaa 90 milyan ama midii ayaa waxay joogtaa 90 milyan waxa ka xanuunka badan waxay tahay diyaaradahan soo daadintooda ayaa waxa soo daadiyay hub aad daciif u ah oo difaaca cirka kuwa ugu hooseeya ah taasoo siisay dowladda Mareykanka tilmaan ah maxaa dhici kara haddii hubkan ay ama diyaaradan ay dowladda Mareykanka ola tagto cadow farsamadiisa ay ka sarreyso kana xeegmad badan tahay midda Xuutiyiinta oo la salbeebayo Mareykanka iyo Shiinaha kale Ruushka iyo Shiinaha kale diyaarad walba oo hawada ka soo dhacda waxa ay keenaysay naxdin iyo kharash fara badan ayay ku keenaysay dowladda Mareykanka waxaana indhalaan ay ka dhigtay ciidankii sirta militariga waddanka Mareykanka
oo diyaaradan aad ugu tiirsanaa iyo diyaaradan oo keeni jirtay sawiro iyo hadafyo ay taliska dhexe ay bartilmaameed meelaha ay ka dhiganayaan ee macluumaadkeeda ka urursadaan. waxaasoo dhan waxaad moodaa diyaaradan ay qaban jirtay inay meesha ka baxday. waa gartay arrin kale waxaa jirta maxamed kaba duwanba diyaaraddu way soo dhacday laakiin cabsi kalea jirta oo ah in xoutiyiintu si kale uga faa'iidaysan karaan burburkii diyaaradda bacdama ay haystaan diyaaradda qalabkeedii kala duwanaa iyo baalasheedii intii hagaagtay ama intii aan guban. welalka maraykanku ka qaba maxay tahay gacanta ay ku hayaan xuutiga? cabsida maraykanka soo wajahda ayaa waxay tahay in xuutiyiinta ay u isticmaali doonaan haraagii burburka diyaaradahaas ay soo daadiyeen inay la wadaagaan wadanka Iiraan oo farsamadiisu sareyso, wadanka Shiinaha oo farsamadiisu sareyso, wadanka Ruushka oo farsamadiisu sareyso, si ay u lafaguraan oo qalabka saaran iyo wax walba u daraaseeyaan, kadibna ay sameeyaan diyaarad drone oo ka xasaassan teknolojiyadda xaggeedana ka sareysa tan maraykanka inta lagaga qadaarto la keeno diyaarada ka khatarsan. sidaa daraadeed ayaa khabiirada waxay bilaabeen inay su-aalo khatar isweydiiyaan. diyaaradan MQ-9 la yiraahdo aan duuliyaha lahayn ma istaahishaa khatarta loo gelayo? lafagurayaasha ayaa waxay sheegeen qiimeyntooda dagaalka Ukraine in ay ku arkeen dhaqaalaha xaggiisa marka la fiiriyo diyaarado ka kharash yar oo 200,000 ka yar oo sameynaya macluumaad ururin iyo dabagal, isla markaasna waxa ay qaban karto diyaaradan qaaliga ah $30 milyan oo kala sameyn kara. waa gartay maxamed dhowr jeer halkan waxaynu ka sheegnay in dagaalka casriga ahaa uu hadda kadib noqonayo dagaalka droniska oo dagaalkii aan naqaano laga wareegayo. marka ma la oran karaa maraykanka weli waxaa ku jirta inuu isticmaalo qalabkii hore, sidaas ayaa keenaysa xuutiga oo aan dowlad ahayn inay ku qasbaan xabajojo inay la galaan in ka badan 20 diyaaradahan la soo rido? adigoo tusaale u soo qaadanaya waxaa ka dhacay Gaza iyo Ukraine oo kale. dagaalada Ukraine iyo Gaza ayaa waxaa aad la isu adeegsadaa diyaarada raqiisa oo aan duuliye lahayn. Ukraine keligeed waxay awood u yeelatay inay ku dhawaaqdo inay samaysatay 2,200,000 oo diyaarado yaryar ah oo dagaalka loogu talagalay, waxaana uga baxay kharash aan aad u badnayn 2024. diyaaradahani ayaa midiiba waxa ay joogtaa baa layiri inta u dhaxaysa 500 ilaa 3,000, waxaana loogu talagelayaa inay ismiidaamiso oo lagu qarxiyo hadafka loogu talagalay. diyaaradahan raqiiska ayaa waxay maareen inay burburiyaan taangiyo madaafiicda goobta iyo artilleriga, buundooyinka, dabagal ayay sameynayaan sida ay diyaaradda MQ-9 oo kale ayay sameynayaan. laakiin MQ-9 waxay uga duwan tahay waxa weeye 30 milyan oo joogtaa. hadafyada waxa ay sameyn karto dhanna waa la sameyn karaa oo diyaaradahan ayaa qaban kara. diyaaradahan raqiiska ayaa awood waxay u siiyeen wadamada isticmaalaya in ay diyaaradda lafirkeeda ay u huraan hadafka ay burburinayso. haddana howlgallada militariga casriga ah dhinacaas ayaa loo jeedaa. ujeedadana waxay tahay in kharashkana hoos loo dhigo, khatarta diyaarad weyn oo sida midaan 30 milyan oo joogta aan loo baahan la adeegsado diyaarada raqiisa oo qiimahooda ilaa 5,000 ku siman yahay oo isqarxinaya, saameyntoodana ay culus tahay, qaban karana waxa ay diyaaradaas qabatay wax ka fiican. waa gartay ma la oran karaa marka hadda maraykanka dib buu iskugu laabanayaayo maskaxdu ka shaqaysiinaya si wax kale oo ka duwan diyaaradan hadda fashilantay sida hadalka loo dhigay lagu bedeli karo? xaqiiqadu waxay tahay diyaaradan maraykanka MQ-9 riibka la yiraahdo awood ballaaran ayay markii hore ahayd iyo sumcad aad u weyn.
awooddaas ballaaran iyo sumcaddii lahayd ayaa tartiib tartiib hadda u sii guraysa. cawaaqib ayaa ka yimid iyo saameyn ku yimid dadka siyaasadda u qaabilsan arrimaha militariga. dowladda Maraykanka mas-uuliyiintiisa sarsare ee ciidanka cirka ayaa waxa ay mar horeba sheegeen in adduunkii iyo dagaalkuu isbedelayo. sanadkii 2021 ciidanka cirka miisaaniyaddii ay ku bixinayeen diyaaradda MQ-9 oo faraha badnayd oo ay sheegayeen maxaa lagu bedeli karaa diyaaraddan. hadda laakiin waxaa soo baxday in aynan caddeyn mustaqbalkeeda diyaaraddan. marka laga gudbo diyaaraddan in ay awood u leedahay inaanan la arkin, hase ahaatee diyaarado yaryar ayaa soo baxay oo ka kharash yar. waxa ay diyaaradaha sameeyaan ma samayn karto. kharashkana hadda waxa uu noqday mid khasaaro weyn oo culaysa Maraykanku ku keentay, halka diyaaradaha raqiiska ah ay ku qasbeen in isbedel weyn lagu sameeyo nidaamkii siyaasadda diyaaradaha loo isticmaalayo andironiska iyo hubka lagu isticmaalayo. hadda waxaa soo baxay diyaarado casri ah oo howlaha ay diyaaradahan qabtaan oo kala qaban kara, kharash badan aynu ku baxaynin. tusaale ahaan sababaha keenay in Shiinaha ay sameeyaan Choitan diyaaradda la yiraahdo ee aan duuliyaha lahayn, jiilkii shanaad ah oo diyaarad drone ah oo loo naqshadeeyey inay qaadato diyaarado yaryar oo droonaysa ciidaas ka badan oo boqolaal ah, laguna saleeyey fikirka ah in diyaaraddan aan loo baahnayn inay goob dagaal tagto, hase ahaatee kugu fasaxaysa diyaarado fara badan. Shiinahana waxay u suuragelinaysaa awood ballaaran oo xagga diyaaradaha droniska ah oo raqiis ah. diyaaraddan laga sii deynayo xirfad ahaan ujeeddo military in laga gaari karayo, wayna isqarxinayaan oo hadafka ay rabaan isku qarxinayaan, waxayna difaacayaan diyaaradda laftirkeeda wadata. marka adduunyadii way isbedeshay. waa garta marka ma la oran karaa bacdaba Maraykanku uu yahay wadanka xagga ciidamada ugu badan NATO, isbedel badan bay u baahan tahay NATO laftigeeda, oo marka la fiirsho xitaa horey wixii loo waday Britain oo kale diyaaradda ay ka fakaraysay waxaasi oo idil, hadda waxay noqonaysaa in dib loogu laabto dhammaan hindisayaashii iyo wixii horey loo sameeyey. isbedelo waaweyn iyo waxbarasho cusub ayaa bilaabatay NATO iyo xulufadii kale oo Maraykanku lahaa. tusaale ahaan sanadka 2024 Britain ayaa waxay joojisay mashruuc ay ku sameysanaysay diyaarad drone oo la yiraahdo Watchkeeper oo la sheegay inay ahayd diyaarad kharash badan ku baxayay, muddo dheer laga shaqeynayay farsamo ahaan. markii la arkay waxa dhacayana mashruucaas oo dhan la joojiyay. hadda Congress-ka shirarka su'aalo badan ayaa hadda isweydiinayaan wakiilada Congress-ka ku jira oo la leeyahay wasaaradda gaashaandhigga marka la fiiriyo kharashka ku baxaya diyaaradahan iyo saraakiisha militariga, waxaa laga hadlayaa warbixinadii ugu dambeeyey oo ah ma istaahishaa diyaaraddan MQ-9 kharashka lagu bixinayo sida sahalka aadana lagu soo ridayo. meeqa diyaaradood ayuu dowladda Maraykanka ay u baahan tahay inay lumiso si ay istiraatiijiyada dib u eegid ugu sameysay diyaaraddan u isticmaalayso? ma istaahishaa diyaaraddan in la soo iibiyo ama iyadoo cusub la sameeyo 30 milyan laga bixiyo midii, ayadoo diyaarado ka wanaagsan isqarxinaya ka fara badan oo ciidaas ka badan oo raqiis la heli karayo? su'aalahaas oo dhan ayaa waxa ay dhabaa u xaareen in sumcaddii iyo waxtarkii diyaaraddan MQ-9 Reaper la yiraahdo aynan ahayn mid la jaan qaadi karta dagaalada casriga ah. waxayna tilmaan cad u tahay isbedelka weyn ee ku yimid falsafadii dagaalka iyo awooddii Maraykanka ballaaran uu ku lahaa xagga cirka. hadda waxaad moodaa Maraykanka in uu dhaawacyadiisa leefleefayo. waa gartay maxay marka arrintani anoo kusoo gabagabaynaynaa uga macno tahay dagaaladii horey loo yiqiin iyo
qalabka hore la isticmaali jiray haddii xuutigu aan dowlad ahayn ay fashiliyaan mid ka mid ah qalabka ugu casirsanaa adduunka? isbeddel in la sameeyo ayaa ah waxaan laga baaqsan karin. diyaaraddan waxaa loogu talagalay in ay ka howlgasho jawi degan iyo xaalad dowladda Maraykanka ay ku jirtay. waxay ku sheegtay dagaalka ka dhanka argagixisada. cadowga ay la dagaalamaysan waxay ahayd cadow aad u tabar daran oo aanan difaac ceer lahayn, ama Soomaaliya ha noqoto, ama Afghanistan ha noqoto, ama Ciraaq ha noqoto. laakiin xaqiiqada hadda jirtaa waxay tahay adduunyadu way isbedeshay. waxaa soo baxay nidaamyo difaaca oo aad u miriqsan oo diyaaradahan cirka kasoo daadinaya. dhinaca kale isbedeladan ayaa waxay tilmaamayeen inay muhiim tahay in la fiiriyo dhaqaalaha ku baxaya dagaalka. ayadoo la fiirinayo muhiimadda ayaa haddana waxaa muuqata samaynta diyaaradaha noocaana inay kharash badan ay ciidanka iyo militariga ku bixinayaan. waxaana lagu soo gabagabeeyey isbeddelka weyn ee imaanaya qarnigan ee xagga dagaalka ku yimid ayaa waxa uu muujinaya in diyaarado badan oo raqiis oo drones la heli karo, sahlan loo huri karo in ay hadafka burburiso, leh awood aad u ballaaran. middan weyn ee quruxda badan ee Maraykanka muddada badan ku faanaya ayaa waxaa lagu doodayaa in xilligeedii uu dhacay. awalba dad sacaboolaya ayay duqeyn jirtay. hadda laakiin waxaa cad in geerideedii ay diyaaradani bilaabatay, umana muuqato inay dagaalada casriga ah ee qarniga 21aad u qalanto inay ka qayb gasho. waa sida loo dhigay hadalka. waa tahay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna way mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka. daawadeen waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararka iyo macluumaadyada aan soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, hadda kusoo bir dhanka Facebook iyo YouTube-ka. waana mahadsantihiin. mar kale nabadgelyo.